أنا سان هرب وشاقي ما دادع كرو ما تابن كرو بوينت لكن جس وحنو مهد علينا يا dadka garab taagan sirtayda og iyagu isku kibgareeya qariya maama Safiya Tusmo heebad iyo sharaf ayaa leedahay cidna kaama qaadi karto isaqajaan xunna awalba yuslis ahayna heebadaada meel la uga madhacaayo ha oonin anaga ayaa garabkaaga wallahi anaga ayaa garabkaaga aniga lambar 1 garabkaaga ayaan warrageena halka qununsanan ugu dhex jiro haddaan iska qaban wallahi ceebta dusheena naga saaran tahay ii wad sheekada hay إقرار النوضة مربين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان نجد أقول نسيت وصابر أنا كانوا صابر إن وحوار كين كسي بدي ماي إن قف عريسنا ورمل إن والله صفر يستودرين مسا ماشي هذا الكيس يوجد كوصعده وحكى له مصعده waxyaabo waxaan arkay inaan ka aamusnaado in wax suurta gal ah because qofka bini'aadamka waxyaabo nabar ku noqonayo jiro hadii calooshiisa ku jiraan wad sheekada hay aniga waxyaabaha caloosheeda ku jira rabaa caaw inaan kaga hadlo adinkana aad ka soo hadashaan runtana aad ka sheegtaan commentigina waa muhiim like tan igu dhiirigeliya waxaan rabaa inaan ka hadlo waxaan arkay muuqaal fanaanadeena Safiya Tusmo horana muuqaalo hore waa u arkay maana ka soo hadlin laakiin hadda waxa igu qasbay inaan ka soo hadlaa waxay tahay waxyaabaha aan u adkaysan waayay wad sheekada hay because qofka bini'aadamka damiir uu leeyahay wuxuu leeyahay dhiig qofka mar hadduu islaam yahay oo dhiig ku jiro oo xalaal yahay oo qof xalaal lagu dhalo yahay oo diin ka dambayso waxyaabo uu ku dhaqmeen ayaa jiro laakiin qof bilaa diin ah haddana Soomaalnimo aan ku jirin ilaa qof diin aan lahayn Soomaalidu ma bageli kartaa because waxyaabaha isku ixtiraamna diinta oo Ilaahay noo kala xadiyay Safiya Tusmo waa gabar Soomaaliyeed waa gabar Islaam waa gabar walaasheena waa gabar haddana nagu dhiiga waa gabar nagu dhacaan oo loo baahan yahay maanta inaan ka dhigno waxyaabaha ayada kaliya ma qof walba ee Soomaaliya waxa jiro mar walba wax soo laabto ee gabdhaha Soomaaliyeed ku dhaco wad sheekada hay ayagan kama feejignoodaan ayaga annagana kama deyno rag haddaan nahnay kama deyno because qofka bini'aadamka waxaa la rabaa inuu qaladkiisana ogyahay waxyaabaha aan arki waaya waxay tahay Safiya Tusmo waa gabar Soomaaliyeed war nin baa intuu soo fadhiisay meel oo wuxuu ku hadlaa hadallo aan qofna u qalmin xayawaanka uma qalmo xataa xayawaanka in la dhaho uma qalmo حيوانك أديك جورج كو أركتو إن أحد أمقلم وقف من هذا وقف إسلام وقف ولا شيء. إيوه شكل هاي. وحو أركي إنه جاني سيستو وحو أركي إن علا جوكتو وحو أركي إنه يكعب سنيسو إحوجه كير بغنيسو مركز بو وحو دارنا يا مر وكدلا مر وحو ليه وماشي أجوكتو متقنا وكو أسا توريبا كجلنا مركز يسي على الفماء وحو ليه أولاد هرئي دي شيء بدل كلا يوكال لابن وريلا باكو داري هذا الكثير أولاد هرئي دي شيء بدل با يوكال لابن وهذا الوجه هذا الوجه في قلبي ما له مياه مركز بو سي وحو سي قلنا يا قيرو بقول ليه دورك أشوك تسفع فيه نه ورب موسى بني آدنا هاي موسى إسلام هاي موسى قف حلال كل شاهين فهمينا دينا شيئاً إن إسلام ماذا إنسان واي بالرمضان كجرنا سان ودقينا قبلها إنسان ودقمنا. إيوه شكل هاي. والله تاس عيب كوين مجرته. مرة بينا نكون دايرادو هذا كان يكون دايريو إلى داوود مقالك. هالمرة إلى صوت داو كدبنا بالقيرة يفعلك أتكسم إلى الكومنتيجا عن كواركو. قف كديو بالكومنتيجي سان كواركو. مفهمتي؟ إلى داو مقالك. إيوه شكل هاي. أوكي. أبلي لها أنا يسوق. مقصود ما إني هو يقدر أبدي كاميرا يدوبن. ماشي شفت من كذا سايق في سوق. قلت مين كذا ساده؟ واحد. حنقرنا يا بادينة ومن خير. بادينة هيا. عد إسلام ور كويسة مش تصوب على ساعة دمرتها كوبرة يوم بالله على كاتو.
أنا قف سلامي كوغاني والله maya fiiri hadalku ku hadlaayo asiga fiiri ilaa baa ku dhaariya halkiis fiiri u fiiri hadalku ku hadlaayo wuxuu leeyahay nala hadal markaas waxay ku leedahay hadal qeyr war kaamirada iga daay waxa aad duubaysid iyo kaamirooyinka la wareegi walaalo iga daay buu wuxuu dhahayaa meesha aad joogto hadaan kugu bireeyo doorkaa miyaad garanaysaa meesha miyaad wallaahi hadal xanuun leh waa ballan ku socono muuqaalka إلهي وجهي قف سلامي كوغاني ودك دي أنا كوغدوي أنا ملا مويانة شو موجود كورن hore wadi baraysa haday bir wax qabanayso لا بلا كوبريس هي باسه إنا لله وإنا إليه راجعون هتان كوبريو ورجع محو بريكرا wuxuu ku leeyahay hadaan ku diliyaa ku ogaana hadda yaa ku keenay social media yaa ku keenay qofkaas ku ogaalahay ku keenay social media sheedaankaaga ku keenay lahaa adiga iskeen lahaa fahmaysa adiga social media iskeen lahaa markaad imaatan waa la ogaalahay qofka bini aadam waa dad bay ka dhalatay markaas baa waxaad kula dhaqatay si cawaanimo muuqaal baad ka duubaysaa waxay ku leedahay walaalo iga day haddana waa usii dhaaranaysaa markaas baysin naxariis waxay ku leedahay horaad ii dishay ma dil baa ay ku laaban toori hadaa ku geli ka waran maxaa toori aa u geli kartaa waxa ma dili kartaa ilaa wax dili karo يا إله العالم إله بكون إقرأ الموضوع مربين إقرأ الموضوع لكن وان حقيقة بينكو شيء ما وقيرة ذا على الحمد يحسو هذا سو كل رقم مايو وقف دن بني آدم بوهدنا أوكي أكو صعنا موقعك هذا ساق ماشي ما كان صوته تشوفه ها حد يفكر لك سيدي جونجر على قطور من لاش waxaan ka garanayaa dulgeeda loo markay inay tahay qalal magac ilaahi waa garac asaa garac diin aan lahayn asaa garac sababtoo qof xalaal ku dhashay noocaas uma dhaqmo qof xalaal ku dhashay noocaas uma dhaqmo diinna ma laha qof noocaas okay aan dhamaystirano waxaan garanayaa dhinaca jooga bariga galbeed ma garanayo intaas waxaan ku hadla ma garanayo because qofka markuu qiiraysan yahay ama xanaaqsan yahay ama wax hadal ka muuqdo muhiimadda hadalkii dhan ay kala dhumo xaqiiq baan ku sheegi maayo hadalkii dhan ay kala dhumo because sababtoo iga kala dhumaa waxay tahay bini aadinimada kuma jirto qof noocaas u dhaqmaayo kuma jiro ma badi yahay bini aadan asaa garaca asaanan diinta qaybna kaga jira sababtoo qof walaashiisa wardhiig muusan ku xisaabtamin hadalka uu ku hadlaayo waxa u sababka ahay waa naas kooyadiisu soo jaqay soo gabar maaha qofka hor fadhi u dhaaranayo haddaad ku xisaabtanto inay gabar kula dhalatay haddaad ku xisaabtanto inay hooyo ku dhashay haddaad ku xisaabtanto inaad qof u baahan tahay wallaahi billahi hada waxaas ku dhaqmi lahayn laakiin waxaad ku dhaqantay waa wax xayawaankaba ka xishooda ma rabo inaan hadalkan kusii badiyo laakiin waxaan leeyahay qof walbo ficilka qalbigiisa ku jiro oo maanta kaga dhiidhi lahay ha tuso doqonkaas xunkaa waa in bariya asxaabteedu waxaan ka codsanaa tusa inuu doqon yahay ninkaas qof walbo ha tuso inuu nin xun yahay because anaga mar kastaba waxaa wasaqeeya waxaa la babaay badan waxaa wasaqeeya hal babaayo qurmo ku dhex jiro halka qurunsana nagu dhex jiro raggeena halka qurunsana nagu dhex jiro haddaan iska qaban wallahi ceebta dusheena naga saaran tahay anaa wax ka qaba adaa wax ka qaba kaasaa wax ka qaba kanaa wax ka qabo because waa la qabnaa fikirka iyo xumaatadaba haddaadan iska dhex qaban qofka ragga ee dumarka dhibaateynayo ma fahmi marka waxaan leeyahay inuu kulan dambe xiisa leh iyo barnaamijyo kale insha allah salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ramadaan kariim